السلام عليكم. بدنا دمانتين ما نقانا قيمها إليه مايا waxaynu ka doorbidnaa haa xataa inuu karin waxaynu ogolaanay oo xataa maya waxaynu ka aaminsanay sifa xun iyo natiijooyin aan fiicnayn oo ay ka mid yihiin waxay dhaawici kartaa dareenka dadka kale waxay abuuri kartaa kala fogashada iyo dadka jeceshahay waxay kaga tagi kartaa inaad dareento dembi ama qoomamo waxay xadidi kartaa fursadaha laakiin maya oo kaliya oo tiraahdaa kama badna diidmo maya oo aad tiraahdaa runtii saameyn aad u wanaagsan ayay ku yeelan kartaa noloshaada waa kuwan qaar ka mid ah sababaha maya ku noqon karaan ficilo wanaagsan oo horseedi kara dhamaystirnaan shakhsiyeed iyo isdhexgal wanaagsan oo loola yeesho dadka kale maya oo aad dahdaa waxay ka dhigantahay inaad waqtigaaga qiimeyso maya oo aad dahdaa waa aalada ugu fiican aad kaga fogaan karto dadka iyo xaaladaha aan fiicnayn xusuusi naftada sida uu qiimahaagu yahay waqtigaaga waxaadna u baahan tahay inaad ka maratayso markay timaado inaad maya ku tiraahdo waxaanaad runtii rabin inaad samayso maya oo tiraahdaa waxay u baahan tahay dareen xoog leh oo naftaada ah laakiin aakhirka waxay xoojin doontaa fiyuubada shucuurtaada maya oo aad dahdaa waxay noqon kartaa ficil geesinimo leh maya way adkaan kartaa in la dhaho adoon xaydaabnin ama aan ku jirin sharaxaad waxaad dhihi kartaa waa inaan ka fikiraa ama ma hubo laga yaabaa mar kasta oo aad tiraahdo maya adigoon oodnayn ama aan sharaxaad ku jirin waxay kuu noqonaysaa ficil geesinimo leh oo leh is-ixtiraam maya oo aad dahdaa waxay ka dhigan tahay in aad ogtahay waxaad rabto halkii aad isla markiiba ka jawaabi lahayd su-aal ama codsi waqti si aad naftaada u weydiiso maxaad runtii doonaysaa mararka qaarkood sababo kala duwan awgeed waa inaynu samaynaa waxyaabaha inaan doonayn inaan samayno inaad si joogto u tiraahdo haa xitaa marka aanad rabin waa inaad tixgelisaa baahidaada waxaa laga yaabaa inaad yeelato ciil taasoo dhaawici karta xiriirka maya oo aad dahdaa waxay ka dhigan tahay in aad dhulkaaga ku taagan tahay dadka qaar jawaab ma qaadan doonaan iyagu way kugu boorin doonaan waanay kugu soo celcelin doonaan waxa aanay la iman doonaan dhammaan noocyada xalalka xirfadaysan si ay kaaga dhigaan inaad dhahdo haa dadkani waa caqabad markaad isku dayayso inaad noloshaada ka dhigto meel wanaagsan oo wax soo saar leh markaad la kulatiin noocan dadkana oo diiday inaad go-aan adag qaadato istaag dhulkaaga oo ku celi isla jawaabtii bilowga haddii aad isku aragto inaad gariirayso dib u xasuuso sababahaad u dooratay inaad maya ku tiraahdo marka hore oo aad tixgeliso sida wanaagsan ee aad dareemayso haddii aad daacad u ahaato naftaada waxaad keeni doontaa qaybtan inay u wareegto qaybaha kale noloshaada maya oo aad dahdaa mararka qaar waa haa mar kasta oo aad hal shay ku dhahdo maya wax kale ayaad ku odhanaysaa haa macnaheedu ma aha inaad waqtigaaga sii daynaysid si aad ugu qayb gasho howlo kale oo laga yaabo inay ka wanaagsan yihiin haddii aad si xun u daranto diidmada qof dib u dhigo jawaabtaada adoo siinaya inaad qabato wax kale oo aad rabto inaad waqti kala samayso way adkaan kartaa in la yidhaahdo maya in badan oo inagamada waxaa lagu barbaariyey inay had iyo jeer wanaagsanaadaan oo ay dhahaan haa barashada sida loo diida casuumada amba codsi adoon dareemin wax dembi ah waa arrin muhiim u ah ku noolaashaha nolol farxad leh inta badan ee aad xariif ku ahaato xirfadda inaad maya dhahdo markii loo baahdo waxay kuu fududanaysaa inaad noloshaada ku buuxiso waxqabadyo iyo dadkuna inay kula yimaadaan farxadda dhabtaa haddii aad isku aragto inaad ka gaabinayso haa wax ka badan inta aad jeceshahay ama aad ku dhibaatoonayso inaad ku dhegto maya mar alla marka aad tiri ku soo noqo 5 qodob oo soo xasuusi naftaada awoodda fiican ay leedahay maya. Wassalaamu calaykum.